السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu sii geli doonaa casharadeenii taxanaha ahaa ICDL. waxaynu qaadanay Word, Microsoft Office Word iyo sida uu u shaqeeyo. haddana waxaynu qaadan doonaa misna bilaabeynaa Microsoft Excel qaabka uu u shaqeeyo. Microsoft Excel inta badan waxaa lagu shaqeeyaa xisaabaadka. marka waxaan arki doonaa qaabka uu u shaqeeyo. waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah Cali Cabdiqaadir Cusmaan. marka aynu horeysiino environment waa intaan uu kooban yahay oo Microsoft Office bottom waxaa jira waa kana casharo lamid ah. waxaan kusoo qaadan inta badan qaybaha hore waxay iskaga egyihiin Microsoft Office Word. waa kana waxaa leedahay Microsoft Office bottom ayaa mujeedo waxaa meeshaan leh calaamadii Microsoft iyo inta uu ka kooban yahay aljeeda. tan kale waa title bar waa kan waxa ujeed maxaa ku qoran buugoon dhow markaad save gareysid meeshaan waa isbedelaysaa. quick access toolbar waa kana waana ujeed doonfaan save-kii calaamadii redo iyo wax tabna haddii u baahdo inuu ku darsan kartaa wax kale. control box waa kan waa closety iyo weynintii iyo dejintii. tabs waa menuga maxaa ku hoos jiro waa kan home-ka maxaa ku hoos jiro insert wixii ku hoos jiro page layout formula data mida taana la yiraahdaa macna tabs menu. namebox hadda dadka namebox waa kana la yiraahdaa meeshaan hadda meesha taagantaa fiican hadda aan tagay C7 hawada C7 oo fiican tagay D1 hawada D1 inta soo qormaysaa yani meesha aad joogtid salka aad joogtid ku sheegaya waa namebox kan soo qormaya. formula waa kana meeshaan waaye marka xuquuqda meeshaan xasaas marka ka shaqeynayso kala waa arki doonaa qaacidadii formulahi waxay ku soo qormayaan xataa ay ku fadhisay. worksheets waa kuwan sheets يعني sheets waxaa leedahay warqadan ku furan wax qornaysid sheet 1 sheet 2 sheet 3 magacaan waa ka bedeli kartaa waa aan ku doona qaabka lagu bedelo waxna ku siyaadin kartaa waa kana ku dhufana waa ku ziyaada waxa ujeedaa foraga ugu mida faras ku ziyaadaya noqon keenay kowaad wax kala jiro column waa joogan faanta mida ilaa hoos mida column waa joogan la yiraahdo column. row waa jif faanta sel waa godka ataanta fahmin kan mida maxaa kan magaciisa god selkan C8 selkan magaciisa D4 akaasa sel la yiraahdaa. scroll bar waa kan faanta jiitama hadda waa jidi karto inaad u leexin kartid. kani waxaa la yiraahdaa scroll bar oo vertical hamida inta vertical kana maxaa la yiraahdaa horizontal waa kana mid hadda meesha aad u jiidaysaa horizontal. waxa kale jira zoom waa kan oo ku dhufan inbaan ku weeyna 120 130 ujeeda soo yareeyay mida 110 120 waa ka zoom ka la yiraahdaa. page preview waa kuwan inta ku yaala mida normal waa caadiga ah page layout ku dhufo waraas oo noqonaya maxaa kale ku sii xigo page break waa kana taas oo noqonaya normalka inuu soo celi. kan kale waxaa leedahay status bar waa kan waxa ku qoran meesha ujeeda read ku saaran status bar kaas la yiraahdaa. ujeeda hada badal meesha laba mar kaliya warsid muxuu leeyahay edit waa meesha wax ku qor yani hada read waa diyaar kaas la yiraahdaa. marka casharadeenii taxanaha ahaa gaar ahaan qaybtii Excel-ka ahaa waxaynu qaadanay casharkii koowaad inta ayaynu ku soo gabagabeynaa intaynu casharkani midkiisa xiga ay dib ugu kulmeen waa aniga Cali Cabdiqaadir oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.